ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya ee caalamka qodobada aad ku daawa doontaan waxaa kamid ah ahlu sunna oo dhaqdhaqaaq ka bilaabday dhuusamareeb beesha caalamka warqad xasaasi ah u soo dirtay guddiga doorashada Jubbaland lafta green oo shaaciyay xog ku aadan dilkii Murguus dowladda federaalka Soomaaliya oo tallaabo ka qaadaysa shirkado dayacay xujayda xildhibaan mahad salaad oo 9 su'aal ka keenay qaraxii lagu dilay injineer Yariisow xaaf uu shaaciyay in uu isku soo sharaxi doono doorashada Galmudug iyo in kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawa doontaan hadduu eebidmo markaani u diyaar garooba qodobadaani intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu ka tanaasulay in uu u tartamo xilka madaxweynaha Galmudug Xaaf waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badani ee maamulkiisa ragcadisay ay tahay kadib markii ay dadka ka soo jeeda deegaanka ay cagaha ku dhigeen waxaan cadeynayaa in aan ka tanaasulay doorashada madaxtinimo ee Galmudug cidii ay doonaan ha doortaan laakiin waxaan kula dardaarmayaa in qofka la doorto lala shaqeeyo ayuu yiri madaxweyne Xaaf ayaa 2 bil ka hor heshiis rasmi ah la gaaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib loolan adag iyo dagaal ay dowladdu u gashay in ay xilka ka turto heshiiska Xaaf uu la galay dowladda ayaa la rumaysan yahay in ay ka qayb ahayd shixnad dhaqaale uu helay isaga oo taa beddelkeeda xaqiijinaysa in uusan dib ugu tartamin xilka sida aan xogta ku helnay doorashada Galmudug ayaa la filayaa in uu ka soo baxo musharax ay dowladda wadato si ay mar kale u xaqiijiso in ay gacanta ku dhigtay maamul goboleed kale kadib doorashadii Koonfur Galbeed wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay ahlu sunna wal jameeca ay dhaqdhaqaaq ciidan ay ka bilaabeen gudaha magaaladaasi dhaqdhaqaaqyada oo ah kuwa ballaaran ayaa lagu soo waramayaa inay wadaan ciidamada ahlu sunna iyadoona la sheegay in ay qorsheynayaan in ay haatan ay ka baxdo heshiiskii ay dhawaan la gashay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ciidamada oo aad u hubeysan isla markaana wata gaadiidka dagaalka ayaa saaka lagu arkay xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ahlu sunna ayaa doonaysa inay dib ula wareegto garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb sida ay caasimada online u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay amniga garoonkaasi ayaa dhawaan lagu wareejiyay ciidamada gaarka ah ee danab xaaladda ayaa haatan kacsan waxaana dadka deegaanka ay walaac ka muujinayaan dhaqdhaqaaqyada cusub oo ka bilowday halkaasi 5tii bishani Agoost ayay ahayd markii uu ahlu sunna ay shaki gelisay heshiiskii ay xukuumadda kula gashay Dhuusamareeb kadib warqad uu soo saaray Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kaas oo walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyada ka baxsan heshiiskii uu sheegay in dowladda ay wada galeen xildhibaan mahad salaad ayaa aad u dhaliilay warbixinta natiijada baaritaankii ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isaga oo soo bandhigay 9 su'aal oo aan wali laga jawaabin dhiigga injineer Yariisow iyo saaxiibadiisa amaana ay ku yihiin qof kasta oo mas'uul dowladeed ah wasaaradda amniga shalay ayay waxay soo saartay warbixin aan wax nuxur aan lahayn dhamaystirneen kana jawaabeen su'aalo aad muhiim u ah sida qofka meesha isku qarxiyay oo aan la shaacin magaciisa shaqada uu hayay sida uu ugu soo gudbay goobaha baarista isagoo u sitaa walxaha qarxa ee sidaasi u weyn iyo sida uu ku soo galay goobta shirka qofku warbixintu sheegtay inuu isqarxiyay sidoo ugu mid noqday madaxda gobolka muddada uu ka shaqaynayay habka uu shaqada ku soo galay cidda shaqaalaysiisay iyo habraaca loo maray shaqaalaysiintiisa yaa mas'uul ka ahaa baarista albaabada maxaa talaabaha oo laga qaaday saraakiishii gobadfalkaasi amni sameeyey ee mise qof ayaana loo soo xiray dhacdadaani naxdinta leh maxaa loo damiyey kaamiradii ku xirneed hoolka shirarka ee qaraxu ka dhacay kahor inta uusan qaraxu dhicin saraakiishii yimid goobta qaraxu ka dhacay maxay ula baxeen xokeedihii kaamirada ku xirnaa xarunta gobolka iyada oo ay joogto hay'adii shaqada ku lahayd ee dambi baarista saraakiishii ku fashilmay ilaalada amniga xarunta gobolka Banaadir sidee loo aaminay in ay ka qayb noqdaan guddiga baaritaanka sameynaya ma dhici kartaa in ay jiraan shaqaale ama madax kale oo iyaguna ka tirsan argagixisada oo weli ka shaqeynaya xarunta gobolka Banaadir diyaarna u ah fulinta falal kuwaani oo kale ah ama ka sii foolxun haddii xarunta gobolka Banaadir oo amnigeedu aadka u adkaa sidaani loo bacsaday ma dhici kartaa in xarumaha kale ee dowladda iyaguna ay dayacan yihiin sida madaxtooyada golaha wasiirada golayaasha baarlamaanka iyo garoonka diyaaradaha haddii warbixinta aynan dhammaystirneen 2 toddobaad kadib goorma ayaa la soo dhammaystirayaa dhiigga injineer Yariisow iyo saaxiibadiisa amaana ayuu ku yahay qof kasta oo mas'uul dowlad ah sidaasi darteed waa in la sameeyo guddi madax bannaan oo khibrad iyo aqoon loo soo xulay baaritaano tafaftiran soo sameeya si looga gungaaro xaqiiqada dhabta ah ee masiibadii ka dhacday xarunta gobolka Banaadir
madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa si kulul uga hadlay dilkii shalay loo geystay Allaha u naxariiste marxuun Cali Aadan Marguus oo ahaa nin ganacsada. Laftagreen ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyay geerida marxuunka wuxuuna sheegay in uu ka mid ahaa dadka haldoorka ah ee ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed. sidoo kale wuxuu shaaciyay in ciidamo ka tirsan kuwa militariga ay ku lug lahaayeen dilkiisa isla markaana ay ku raad joogaan sida uu hadalka u dhigay kuwa dilka iyo dhibaatada geystay ee sida xun u fikiraya waa kuwa ka tirsan ciidamada in ummadda ay dib ugu soo noqdaan oo dhib u geystaan waa wax aan la aqbali karin. kuwa gacan ku dhiglayaasha gacanta ayaa lagu soo dhigayaa sidoo kale waana la maxkamadeenaya ayuu yiri Laftagreen. dilka marxuun Cali Marguus iyo dad kale oo la socday ayaa sababay in dagaal beeleed uu ka bilowday duleedka magaalada Baydhabo kaas oo isla shalay lagu dilay 2 qof. Marguus oo si weyn looga yaqaanay koonfur galbeed ayaa hore u ahaa siyaasi wuxuuna soo noqday wasiir iyo xildhibaan inkastoo markii dambe uu iskaga baxay siyaasadda. dilkiisa oo salka ku haya arrimo la xiriira dhul ayaa ka dhacay beer uu ku lahaa halka loo yaqaano Maanya Fuulka oo u dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ka digay in doorashada Jubbaland ay ku dhacdo qaab daahfuran la'aan ah iyagoo ugu baaqay maamulka madaxweynaha Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka inay habraac waafi ah u dejiyaan tartanka doorashada. warqad loo diray guddiga doorashada Jubbaland Agoosto 8, 2018 ayuu wakiilka cusub ee qaramada midoobay James Wan ku sheegay in ay su'aalo ka qabaan habka loo maareynayo soo xulidda xildhibaanada iyo doorashada madaxweynaha. sida guddiga doorashooyinka u xaqiijin karaan in dhammaan musharaxiinta si siman uga wada qaybgali karaan tartanka ayaa lagu yiri warqadani. waxa ay sheegeen wakiilada beesha caalamka ayaa ugu baaqay doorashada nabdoon oo xor iyo xalaal ah sidoo kalena ku salaysan hanraac hufan ay ku dhacdo Jubbaland bishani Agoosto. warqadda James Wan ayaa la filayaa inay abuurto dood ku aadan kalsoonida lagu qabo guddiga doorashada Jubbaland iyo inay Kismaayo ka dhacdo doorashada natiijada lagu wada qanci karo. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegayso in aysan aqoonsan doonin natiijada doorashada Jubbaland haddii aan la raacin nidaamkii ay iyadu dejisay. waxay sheegtay wasaaradda in odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub in ay noqdaan kuwa iyadu diiwaan gelisay sida oo kale baarlamaanka dooranaya looga qaban yahay markii uu guddoonkiisa doorto kadib in uu dhiso guddi ka shaqeeya qabsoomida doorashada madaxweynayaasha Jubbaland. si kastaba ha ahaatee Jubbaland ayaa horay u diiday baaqa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ayna sheegtay in arrimaha doorashooyinka ay yihiin kuwa u gaar ah maamulka oo isaga kaliya go'aan ka gaari karo. madaxweyne Axmed Madoobe oo Jubbaland soo hogaaminaya tan iyo aaskeedii 2013 ayaa hadda ka mid ah musharaxiin isaga oo raadinaya in mar saddexaad uu xilka qabto. wasiirka ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay qaar ka tirsan shirkadihii keenay xujayda inay si qaldan u maamuleen guryihii xujayda ee Mina. wasiirka oo ka mid ahaa guddiga dowladda Soomaaliya ayaa u xil saartay kormeeridda xaaladda xujayda Soomaaliyeed ayaa sheegay in shirkadaha qaarkood ay sameeyeen dayacaad weyn. waxa uu sheegay in dowladda ay tilaabo ka qaadi doonto isla markaana si adag loola xisaabtami doono 4 shirkadood oo uu sheegay in ay marsiiyeen hanaan qaldan xujayda Soomaaliyeed qaarkood. waxa uu sheegay in sidoo kale gaadiidka basaska ee xujayda u qaadi lahaa Mina aysan helin isla markaana hawshaasi ka gaabiyeen shirkadihii diyaaradaha ee daabulay. sawirro laga baahiyay xujayda isla markaana la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinaya iyagoo jijiifa dhulka. dowladda Soomaaliya ayaa sanadkani dhowr shirkadood u ogolaatay in ay xujayda Soomaaliyeed geeyaan xajka waxaana jiray tartan la geliyay in ka badan 80 shirkadood. tartanka ayay xukuumadda sheegtay in ay ku soo baxeen 58 shirkadood kuwaasi oo xaq u yeeshay in ay xujayda u daabulaan xajka. guddoomiyihii baxsada iyo dad kala duwan oo wasaaradda baxsada ka socdo qaban waxay garab taagan Dr. Cabdishakuur oo muxuu ahaayey ka tirsan dadka soo xajiyay sanadkan. marka aad runtii maaragtay kormeerkaa soo sameeyna aad ugu wanaagsanaa xujaydana si wanaagsan bay runtii u dhegeen. marka ilaahay baa lagu mahadiyaa. waxaa waaye waxaan ilaahi subxaana watacaala ka baryayna inuu dhammaan kuwada sahlo muxuu ahaayey ducada ka aqbalo dalka iyo dadka iyo muxuu ahaayey ummaddan ilaahi subxaana watacaala xujayda inay u duceeyaan ay muxuu ahaayey halkan u joogaan ilaahay ha u aqbalo dhammaantood. waxaan joognaa goobta barakaysan ee Muna ayaan joognaa. waxaanu la joognaa xujayda Soomaaliyeed oo maanta u bilaabatay maalintii koowaad oo ay acmaasha xajka gudanayaan.
وأنا وفد بلارن وقصة وزارة الأوقاف في أرمها الدينة kormeer ayaa ku soo samaynay inta badan goobaha ay degan yihiin xujayada Soomaaliyeed maanta run ahaantii xaaladdu guud ahaan wax dhibaato ah oo aan la kulanay ma jirto xujayada caafimaadkooda noloshooda goobaha ay degan yihiin intaba way fiican yihiin marka gudaha la galana dad aad u fara badan oo 11,500 oo xaajid ka badan ayaa gudaha ku jira iyagoo ku jira dacwadooda iyo allabarigooda iyo xaaladooda guud عريري وكجرا قوته عريري مرة لما هو ماشي مكان كابو جودهان بعد 3 مليون 4 مليون مسلمين سويت بعدها لكن أنت صور أنا تذكر حال كذا وتجاي حجاجة وين رجعان بس كان نقدر ما يقدر كذا تاجنا وبس في الوسط هذا حجاجة الصوماليين فهي كل لو قالنا وحتى جينا بنك وين عرفه مركز في الصومالي وحنا باقي هنا يسعى في السوق وقدنا كلو ولا دعية إنما إلا موجية يقف اللي بقف كله ولا الكائن عافية ولا بقارهان ذاتك هناك جوانا يضرب بالإسلام دونان يقولها صومالي لا صوم الدعاء الإسلام كمان